magacaygu marka hore waa Cabdicasiis Cadaan Xuseen maanta barnaamijka arrimaha bulshada waxaan si gaar ah uga hadlayaa biyalaanta ka jirta caasimadda magaalada Hargeysa oo aad dadkuna ay ugu sii badanayaan oo magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodijeex uu yahay caasimaddii gobolka Somaliland magaalada madaxdiisii saadarteed marka la qiimeeyo magaalada Hargeysa bariga hore waxa la sheegaa qiyaas ahaan inay ku noolaayeen looguna talagalay biyo-gelinteeda 700 qof ilaa adigu milyan wax ka yar imikana ay ku nool yihiin 1 milyan iyo 700 qof meelaha qiyaas ahaan dad lagu qiyaaso xaaladda biyo-laantuna ay ka sii darayso magaalada Hargeysa in gaar ay magaalada Hargeysa biyo cabaan biyo ku filanna aan magaalada Hargeysa wali laga helin booyadana ay u dhaamiyaan magaalada Hargeysa baaxadeeduna ay sii ballaarato xaafado cusub ay soo bixeen haddaba waxaan ku talin lahaa dawladda inay biyo ballaarinta sheegayeen mashruuci faan noola noqday ee xumbo weyne bal inay dib ay u soo rogaal celiyaan oo mashruucaas bal dadka laga qanciyo oo magaranaysa biyo gelinta magaalada Hargeysa meel wala biyo laga leeyahay biyo la geliyo wasaaradda u qaabilsan wasaaraddaasi ay dadka ka haqabtirto oo ay magaranaysa gaarsiiso dadka baahida asaasiga ee nolosha ku xidhan inay gaarsiisaan anigu kula talin la anigu 14 sano ka hor ayaan ku qiyaasaa 2004 taqriiban ayaan ku qiyaasaa inaan biyo heli jirnay waxaafadayda aniga Axmed Gureybe ku taala imikana 14 sano ka hor primary-gaan dhigan jiray imikana jaamacadan dhigta ayaa igu dambeysay biyo qasabadeedan cabo halka dadka qaarkood labada gacmood ay ku farxalanayaan ama ay ku meedhanayaan xaq waana u leenahay muwaadin baalna marka waxaan leenahay cadaaladdu ha sarreysiyo sharcigu ha sarreeyo bal dadka hoos ha loo eego dawladda cusub ee xisbiga kulmiye nepotism yaan la sameeyo embezzlement yaan la sameeyo corruption fadlan dadka ha loo xaqsooro cadaaladda ha la ilaaliyo iyo sinaanta iyo justice iyo equality aad baan idin salaamiya bismillah magacaaga ku biro maxamed cilmaan marka maxaa u arkaa arrimaha ka hadlayna waa muhiim aan codkiga dhibanaya sidaadii meel hore soo hada ka sheego hadhow hadii kala wal qoraya iskana ilo meero saan noqonay oo maxay noqotay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxa kamid ah qolada tabliiqiinta waxaan Somaliland baanay waxaan leeyahay Somaliland in badan baa biyara qaar badan baan meeran bishii qaar badan baa fool dhaqanin qaar badan baa quraacaan wax biyaraan la quraacan waayay meesha waxaanu leeyahay jungalka yeena moogaba kaariyoonayaal iyaga dhixmaar baa u dhaamiya dawladda Somaliland waxaanu leenahay meel walba biyaha gaarsiiso deega dhan baagta aad u maasan tahay adigoo walaal magacaaga ku بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوي dadka meesha ku nool Hargeysa ama Somaliland ama caalamka waxay cadaaladdu waa meel cadaaladda meel qura weeye meesha dadna wacdiga maran dadda seefta dadka wacdigu ay maraan waa dadka tukada masaajidada gala weeya ee ku tukada من يحتاج المساجد أشهدوا بالإيمان بالنبي نك مساجد عادة كنك إيمان عمر خاتكعة تذكر السوق شوقة إن وليد تجين ويساوي أجيه وتذكر سيفته تطلع طول ماشي كمان مغلو سنده يتوجده سمعنا لبعضنا فيه ما أنت هداد قاري ما أنت هداد بسك كاحد عاوة ما كنت قل مغربك لما توجو يريرو لما أما شن مدير عليه ستاك ويلية دق هداد يريب ويدو مدير أوفت لقى قل لي دق لا واحد ماشي كويس ما كان نف بسك النف صارت النف ورديس وحويه مركا شرعي وحويه نك سنده والدولة وحماس إلهي بحيه سنده إلهي بكاذي توجدنا إلهي بكاذ سنده وحوه الريبنا إلهي يدي دمرك توجدنا رجع وهو الريب كتاب كياله وحوي الثانية هو ناقت قالت السنة ركتب مشوك ما أنت ماشي دوتي مريض الزانية والزاني والنك فجلدوا كل واحد 100 جلدة بقلبها لقى شريت السوق ما تذكر أركي مساج أكتب لكيني ولا كشري تو كنيرة إنه وريري موبلك أما حبلا كبر يدك نور بكب قنايو والله سوق قنايا أفرت الدامود أفرنين أقوله مقعنت لك شري سعودي وحبلا بحض
waxa weeye saariq waa ninka asaariqatun faqdacuu aydiyahumaa baa ilaahay labada gacmood ka jara inta gam laga siiyaa meel laga soo laalaadinaya raggu meydkiisa ma dhaafo dadku kol haddii gacan laalaada la arko tuug dambe walaa kaaro baabuurtu maydhaya waddankani ma shaqo la'a waddankanaad ku nooshaa ilaa shacabka ilaa meesha u dambaysa wax ka shaqeeya dad ajnabi ayaa baabuurta maydha marka la maydhaya $2 baa la qaata inabada yare Soomaaliland u dhashay inay shaqaystaan ama lacag la soo baxaan mar rabaan riwaayad bay rabaan maqribku bay soo kacay madina dheer bay soo qaadanayaan afar baa laga jaraya abte waxa weeye la isku noqdo madaxweynuhu dantiisa ha qabsado dawladdu danteeda ha qabsado tuugan lama qaban karayo gacanta laga jara mooyaan sharcigan way wallahi inuu joogo dhiladuna qof dhila bartay wallahi inuu istaagi wallahi allah inuu waafaadiid salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh